sidoo kale waxa wasiirku daboolka uu ka qaaday in maanta laga bilaabo aan laga dhex isticmaali karin lagana safri karin baasaboorka ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in aanay haba yaraatee aqoonsaneen baasaboorkaas iyo waliba cidii sidata wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cado arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisii waxa kamid ah oo sita baasaboorka Soomaaliya oo damacsan ama damcay inay ka talaabaan xuduudda inoo dhaxaysa inaga iyo Ethiopia ama kilka تاوان ممنوعني Soomaalida sita baasaboorka Soomaaliya anagu ma ictiraafsanin baasaboorkoodana ma ictiraafsanin sida awgeed maadaama aan ictiraafsanayn lagama bixi karo Somaliland ninkii baasaboor sita wuxuu kaga bixi karaa halka laga aqoonsan yahay Soomaaliya taana muxuu ahaayay si aanay dhibaato u gelin xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya xuduudda Somaliland iyo Ethiopia awgeed waxaan u diidnay inay ka baxaan wajaalo oo kale iyo meelaha laga baxo boorkale maadaama uu yahay baasaboor cid alla cid controlsha aanu jirin cid muxuu ahaayay uu accountable yaani jirin oo laga sameeyo mesela maalin dhow halkan waxaan ku qabanay niman shandad yar sita oo muxuu ahaayay dhabar ku sita iyo computer oo meelaha kula gabado dadka dabeedna inta lacag ka qaadaan bay dhahdaan waxaan idin soo sameeynaa baasaboorka Soomaaliya marka baasaboorka qofka loogu soo ridayo DHL-ka ama qof loogu soo dhaweeyo isagoon laba arag oo immigration arag Soomaaliya ما هو باسبور لو كلسونان كرو عدة سيدة يوحي هاي عدة كمسؤول سيدا وجد أنا قوم اعترافين هاي باسبور شراء ولا أي باسبور ولا واحد دونها شكته si kastaba ha ahaatee hadalka maanta ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cado ayaa ku soo beegmaya xilli ay xujaajtii dalka ka dhooftay ay dalka kaga baxeen baasaboorka ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya balse waxa aan la garaneyn halka uu ku dambeyn doono hadalka wasiirka